السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو ونكسن داوديال كسر دوادا برنامجك حلقودشو حبنا حكومة aynu kaga wareysano waxqabadka wasaaradaha kala duwan ee golaha xukuumadda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle barnaamijkan oo idlahaantii aan ugu talagalay waxqabadka iyo waliba godololaha jira barnaamijka cadadkiisa maanta oo Maxamed Daahir iyo Khadar Cabdullaahi si wada jira idinku daadahinayaan waxa marti idinku wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud oo aynu ka xog wareysan doono guud ahaan wasiirka waxqabadka wasaaradda xilligan oo loo diyaar garoobayo sanad dugsiyeedka 2020-2021 guud ahaan su'aalo la xiriira waxqabadka wasaaradda iyo waliba su'aalaha inta badan dadweynuhu iska weydiinayaan ayaan wasiirka halkan ku weydiin doonaa mudane wasiir waxbarashada xirfadda mudane wasiir tan iyo markii la idiin soo bedelay xaggina loo soo wareejiyey tababarka xirfadda bal maanta halkeed ka joogtiin arrinta xirfadda waxbarashada gacanta taariikh ahaan waxaa 2012 ayaa wasaaradda waxbarashada loo soo wareejiyey maxaa la yiraahdaa farsamada gacanta marka waxa jiray oo quraata markaas liiga jiray safaadina loo soo wareejiyey iyo waxay markii hore jiray meel loogu talagalay college loogu talagalay d'enseignement technique oo ilmaha yar markuu lixaadka amba toddobaadka jirina lagu wareejiyo kuwaasina waa loo soo wareejiyo lycée baa laga dhigay waxa loo sameeyay maareyn baa loo sameeyay direction general la yiraahdo ayaa loo sameeyo ka koobnayd un sideed qof mas'uulkii sare iyo laba director aniguna xitaa 2014 aan noqday mas'uul ka noqday qaybtaasi farsamada gacanta ka directionka veille sectorielle et prospective marka waxay noqotay ina horta la yiraahdo haddii wasaaradda waxbarashada la keenay waa inay farsamada gacanta ay quwad yeelataa oo xoog la saara de sideed qof way adag tahay sidii hawlaha balaaran inay gasho laakiin haddana ma sha Allah arinta waa la galay waxaan ku bilownay horta ina waxa la yiraahdo formationyaal tababaro joogto ah oo ardayda iskuulka ka tagay tagaalad kaga tagay amba kaga tagay isagoo oo toddobaadka dhigan ama klaaska toddobaad dhigan ama klaaska sideedaad dhigan ka tagay kuwaasi oo degdeg weyn gaaray oo 18 jir amba 19 jir waxba hayn ina formation balaaran wagi wasiirkii ugu horeeyay uu joogay farsamooyinka si balaaran ina magaalada madaxda iyo hejadaha laga qabto waxa kale la sameeyay ina la galo barnaamij ina macallimiinta iyagana training loo sameeyo waxa dhacday in maxaa la yiraahdaa xitaa laga fikiro sidii maxaa la yiraahdaa loo bedeli lahaa basko saddex shay baa jirtay oo laga cabanayay waagaas oo lahaa ardayga ka soo baxa fasalada dugsiyaasha farsamada gacanta iyagu waxba ma garanayaan oo iyagoo waxba garanayn baa ka soo baxaan maga maxaa la diidi jiray maxaa amba la yiri saddex waa amba la yiri waxa la yiri qalabka lagu dhiganayo waa qalab raagay oo ka soo haray qaban sayski ka soo haray oo daali weeyaan baa la yiri waxa kale la yiri tayada macalinku waa niveau maxaa la yiraahdaa niveau back amba waxaasiyo oo dibis formation helay ayuu yahay waxa kale la yiri manhajka lagu dhiganayo teoriyo bahaydo qoladii shirkadaha gaarka u lahaa waxay yiraahdeen anaku baalkaasi maanu sameyn waxa dhageysiina ma garanaynaba saddexdaaba ahayd marka waxa la guda galay ina de waxa ruux baahan tahay maaliyad u baahan tahay waxa u baahan tahay dadaal weyn u baahan tahay marka xagaa laga soo qaaday marka madaxweynuhu Ilaahay ka jazaaysiye wuxuu sameeyay waxa la yiraahdaa fond de la formation professionnelle صندوق tababarka xirfadaha xirfadaha sidii ay u helaayeen caawimaad appui la yiri bijigu ku dhex jira laakiin waa appui gacan u heli lahaa farsamada gacanta oo saddexda arrimood uu maxaa la yiraahdaa kala qayb gali lahaa amba ka caawin lahaa de taa markay bilaamatay maanta noo arkaysaan de xagga joogto farsamada gacantu waxay noqotay ina iskooladii aan galno plan intaan sameyno sidii deja loo jididin lahaa qalabkii oo dhan waxaa jirtay liigii sad garanaysan arriba ku yaala lycée industriel et commercial de Djibouti waxaa jirtay hejadahan waxaa jiray lycée baa jiray maanta hadaa hejadaha atagtaan lycéashooda
qalabka waxa yaala otonka kan Djibouti yaala inta taalo ma taalo awalkii hore xitaa waxa dhacaysay inaa bas liisegaasi u badnaado liise commercial wixii de comptabilité laakiin imika industrialkiiba على السبيح دخل تجرة أبخ ورشدينتي أي قلب كويالو وحكى لي جرا مارينتي حكي دوكسياشاس إنا تريننج بدن لو سمايو وهي وحوين قفك مارينا يا سكول كعادي جا إنه كدو أنا دوين سكول كان محل فرصة ماذا عنت مارينتي وإنه نقض شيف دونتربريز ولا دونيا إنه شيف دونتربريز نقضه ونقضه برودويجي شو نقضه محي الشركة اللي ماشي شركة وكالة وبرودويجو وعرضي برودويجو سكنوا شيف دونتربريز كلنا waxa shaqaalihi macallimiintu warshada ka shaqeynay waxaan maskaxaan iyo mareehan way ku duwan tahay alafaanga product-gaasina wax ka iibsanaya waa se les entreprises ka iibsanaya marka waxa degdeg loo galay horta in la yiraahdo kaalaya qoladan maxaa la yiraahdaa shirkadaha gaar kale bal noo sheega ardayga ka soo baxaya cankiiba doonaysa oo mas'uuliyiintii conseil technique conseil pédagogique iyo inspectoradii ayaa la sheekaysanaya ragii executionga maaha patroga entreprise maaha ragii shaqada gacanta ku hayay ila shaqaysanayno wabal qofka shaqaalaha kula shaqeynaya aankee doonaysa inuu noqdo amba wajiga adoonaysid inuu yeesho waa waji oo sidee marka waa laga soo qoray dib baan anaku u dhigay sida 10ka dib loogu dhigay waxaan nala socday oo nala qabanayay waa expert anagu yana Francisca oo lagu yeeray waxa la référentiel de formation référentiel oo manhajki wax lagu dhigay oo qaybtii wuxuu iska leeyahay theory-gu iska leeyahay qaybtii practice-gu iska leeyahay marka 13 baak ya dib u jeediyay 13 baak ayaan niri la eeg nala valideeyeen laakiin dambe waan ka booday markaan ragii la soo sheekaysanay shaqada gacanta ugu hayay aan u bedelnay 10kii u bedelnay ورجع كالكالياشة فرانسيسكو أي نلا إيجي نلا ديسين أيام كده دم مركان أنا كقرنا يعني يجدوا ويانا وكان كعليه بال قال دي اندستريال قال دي كوميرشيال قال دي فروع كلماتيزاسيون قال دي كلام أوتوموبيل قيب بس أنا سميني أتيليال بلا سميه وأتيليال شاسوي كسو قيب كلام أو حرف كسامة ودونتين إسامة دونتين إن كاليفيكاسيون حرفض كاليفيكاسيون معها واحد جت كاليفيكاسيون حلنا اوفريي سيمي كاليفي بالنا وكان يسوي عيار هوان ابري اوفريي جيب جرت حرفض ابري كل واحد جرت كان تكنيشيا جرا ابري تكنيشيا سوبريور كجرا marka qaybahaas xirfadahaas ay kala leeyihiin diploma ayaa correspondinaya qaybta maxaa la yiraahdaa اوفريي shahaadooyin la xiriira shahaadooyin bal xiriira waxa oo dhan bal isla wada qorqoray iyo xirfadii exactly waxa ahayd waxay yiraahdeen waxaan doonaynaa inay ardaygaasi uu arday hadii jeer gacanta ku haya xirfadii baan doonaynaa bay yiraahdeen gacanta ku haya way habaan weligiiba arki jiray soo ku dhigan jiray kala soo shaqeeyo marka waxaan idhi hayi imisa doonaysa waqti buu nin la joogay ninka waqtiga milieu professionnel-kaasi imisa saacadood amba imisa ayaamood baa doonaysan waxay yiraahdeen markuu bilowga horta ilaa markuu ilmaha farsamadii markaaba loo dhiibayo qalabkii loo dhiibayo warto inuu eega horta u daawada daqiiq la duuba leeyahay raga shaqada ku jira inuu garab joogaa uu observeya waa dugsiga secondka waxa noqonaysa waxa ku yiraahdaa wax ku filan 2 saacadood inuu hal jeer inuu dul joogo stage waxa la découverte de métier arday kasta inuu eego uu fahmo sida waxa noo sameeyo après waxa noqotay inuu markuu premier ka u dalaco laba semaine laba toddobaad waa secondkii laba toddobaad uu kala baahsan ayuu ilmaha yar uu observeynaya waa secondkiisi markii ugu horeysay uu soo galo iskoolkan farsamada gacanta markii sanadkii labaad uu gudbo sanadkii labaad waa inuu sameeyo bay lahayn 6 semaine 6 toddobaad waa inuu awdeg ama noqoto 3 toddobaad dhinac 3 toddobaad kale dhinac cuntka marka la isku dagay sanad dusheedka waa inuu 6 semaine uu noqdo 6 semaine uu la shaqeynayo uu milieugi ku dhex jiro professionalka uu iskoolkii biyaadi ku dhex jiray markuu terminalka gaarin waxay raaheen 14 semaine 14 semaine waa inuu ilmahaasi uu milieugaasi biyaadaasi farsamada gacanta ee practiga inuu joogo marka la isku dageeyo waxaan xisaabinay waxa noqotay wimo bay noqotay 8 bilood bay noqotay 3 sanadood 8 bilood
waa inuu ilmahaasi uu bi'adaasi farsamada gacanta ku jiro marka waxay ka dhigan tahay ilmihii wuxuu noqonayaa ilma 3 sano sanad bas ka sanad 8 bilood waa sanad sanad dugsiyeed marka la qiimeeyo sanad dugsiyeed waxaan odhanaynaa manhajkaasi baagaasi referencialkaasi sanad dugsiyeedkaasi sanad dugsiyeed complet waa entier waa saddex loo qabsaday entier idil wuxuu joogay media professionalkii markaasi noqon ma qofkaasi waa qof maîtriser xirfadii ka dhiganta markaa aad u garanay aqoon badan u leh waayahay ta kale waxaan ka nidhi waxaad samaynaysaan marka ilmo intaas 3 sanadood ku jiro ilmaha yar formationka kaale nala formeey ilmaha yar xitaa professional ana tababara professional imanaya iskoolada sida maxaa la yiraahdaa ilmaha yar u la formeeyaan marka waxaan nidhi kaale oo imtixaankii nala qaada oo de certified markhaati noqda shahaadada ilmaha helayo inuu xirfadii leeyahay in kale juriga ka mid yihiin marka hadda waxa ka dhigan tahay maadaama casharkii la dhigay nala soo saxdeen maadaama nala soo formaysay ilmaha yaroo markii uu staajada imanayay uu ninkayni imanayay waqtigii ninkayni la joogay waqtina annagu la joogay waad soo tabarteen waad la socoteen imtixaanka nala qaadeen markaasi waa deeno noqdaa qof de markaa wada qaas idin anfacaya aniga soo shaqaystay marka taasi weeyaan imika markuu soo gaaro baccalaureagas waxa dhan la sameeyay ilmaha yar annaga waxay naga tahay in ilmaha yar ilma yaro de diyaar u yahay oo iyaga si uu doonayaan loo sameeyay marka waxa jirta de parameter kala jira oo qaarkood iyagoo xitaa farmasho ku jira la qaataa ardayda xarifinta iyagoo farmasho ku jira qaar ku qabana kana waran dhameystay baga hele daaya oo businesska iyo qaadanaya orannikan waa nin xarifa degdeg buu arintu fahmay waxaan doonayaa inaan shaqo geliyo qaarkood xitaa waan kari weynaa macallin baaro waa laga saaray habeenkii ba dhigtaan sida shaqadana aroortii iska shaqo galayaan habeenkiina waxa la yiraahdaa bag iska marayaan kon delivery ku marayaan marka taasina waa muhiim quwadna waxay siisay farsamada gacanta wasaaradda waxbarashaduna waxay siisay au niveau de sensibilisation iyo communication aad iyo aad ba telefishinka ka soo inaan wacdi gelinay xitaa waxa lagu tagay ardaydii markay neefyamaniga lagu tagay waa loo micneynay farsamada gacanta waxay tahay imika waxaa noqotayba markii hore inay dumarku haweenku ooyaan wala liigii biga galay ilmihii yaraa farsamada gacanta ilmihii yaraa laga gashay oo iga saaqaday imika aad u fahmeen aad waxay u fahmeen waa tukalna way jirtaayo waxaan nidhi ardaydaas ka baxaysa fasalka terminalka ee farsamada gacanta waa inay 3 ku koobnaadaan amba waa mid waalidkii iyo maxaa la yiraahdaa xirfadiisa ay iyo baahi anaka u qabno keentay inuu sii wato maxaa la yiraahdaa waxbarashada sii wato oo niveau universitaire oo sanadka samee 3 sanadoodba 30 ciyaal ayaanu dirnaa Maroc loo diraa anagu la heshiinay dawladda Maroc la heshiinay ay sanad kasta waxa naloo formeeyaa 30 ciyaal oo farsamooyinka Djibouti ka maqan ama farsamooyinka naga maqan innaka oo laakiin aan dhigi kar weynay maadaama formateerkii ma haysano ayaan u dirnaa kuwa aan u dirnaa promotion ugu samee soo noqon doonta oo dugsiyaashiina ka dhigi doonaan tayadii wax macallinka ay kor kacaysa markii hore waxaan lahayn macallimiintu inta badan waa macallimiin jaamacadda ka soo baxay oo ku yar tahay xagga farsamada gacantu yaa macallimiin noqonayay marka dhibaato badan baa naga haystay xagga practiga marka waxaan ku dadaalnay inay macallimiinta dhigi doonta sanadkan laga bilaabo intooda badan inay noqdaan macallin secondkiisi premierkiisi terminalkiisi jaamacadiisiiba farsamada gacanta ka soo baxay awalkii hore waxay ahayd kuwa lycée ka soo baxay oo second caadi dhigtay premier caadi dhigtay terminal S galay oo marka dambana jaamacadda u dalacay oo génie civil soo sameeyay génie oo de théoricien oo pratique ku yar yahay de ni théoricien de muxuu ciyaalkii pratique bari isa ku yartahay laakiin waxaan nidhi waa inuu noqotaa tayada macallinka si loo bedelo inuu macallinka dhigaya uu noqdo macallin wajiga leh kii maareynayay inuu noqdo maareyn nin sidii chef d'entreprise maareeyo casharkii la dhigayay inay noqoto cashar adapteeya baahida maxaa la yiraahdaa shirkadahaas ku habboon marka hadda waxay leedahay mudane wasiir inkastoo dawladdu si rasmiya wasaaradda waxbarashada ay ugu wakiilatay tababarka xirfadaha haddana iyadoo oo laga duulayo la dagaalanka camal la'aanta waxaa jira hay'ado dawladda ama kuwa gaar loo leeyahay oo sameeya tababarka xirfadaha wada shaqayn intee laag baa idinka dhaxaysa aqoonsi iyo shahaado ma siisaan bal arrintaa naga war horta waxa weyn sidaad ogsoontihiin 2 bilood horteed 3 bilood horteed waxa ay madaxweynuhu uu doonay uu naga yiri waa inaa sidaan dadaalkana wadno farsamada gacanta lagu wado waxay ahayd de arrin degdeg oo si degdeg wax looga qabto oo suuqa maxaa la yiraahdaa shaqada
inaad degdeg baahidiisa looga jawaabo oo marka dimilka tooska ni sheegayo dadaalka weyn la galay ilaa imika lagu jiraa sidii qaybaha kala duwan ee baahida jirto loo buuxin lahaa laakiin waji ma lahayn inaan waji loo sameeyo waxa la yiraahdo politique nationale de la formation professionnelle siyaasad qaran oo qoraalo oo vision leh oo aragti lagu dhigay oo aragtidii madaxweynaha ah inaa la qoro waan qornay waxa shaqeynay sanad iyo badh baa laga shaqeynay inta aan baahida degdega aan kolba aan xalinaynay afrinay iskoolka waxan baa laga uga baahan yahay qalabka uga baahan yahay macalinkan saa uga baahan yahay anagoo taa wadna ayaa ta kala garab wadnay oon lahayn in horta waji loo yeelo waji waxa ka tahay inuu qol kaste amba qof kaste siduu doono inuu sameeyo maaha hada dib wixii la qabanayo si mid wala wajib la sameeyo kasaas waa meelaha gaarka loo leeyahay formation professional ka sameynaysa kasaas waa hay'adaha kale ee maxaa la yiraahdaa formation professional sameeyo inay weel quraata ay ku soo dhacaan oo baahida laga jawaabay tahay inaan soo saarno arday amba maxaa la yiraahdaa arday farsamada gacanta leh oo waxa competitive oo tayadii shirkadaha kor u qaadaysa kii shirkadaha kor markay u qaado economiga wadanka ayaa kor loo qaadaya kor economiga loo qaado economigaas wuxuu noqonayaa economy regional noqonayaa ka qayb galaya competition ka qayb galaya lama international marka wajiga la doonayo meesha hadafka la doonayo waa hadafka weyn marka sidii loo galayna waa in si habaysan loo galo marka politigaasi wuu qoran yahay imika waxaan ku jirnaa inaad television ka socotaan ayamaan xitaa sharar baa leeyahay heejidaha ay soo marayaan sidii ay noqoto horta waxa la balaarinaya of the formation hadii ay markii ay koobnayd tababarka la sameynayo tababarkii waan balaarinayna tababarka haduu arday dugsi u siinay maanta wuxuu qusayn doonaa arday munaadin kasta reer Djibouti oo u baahan inuu farsamo barto inuu xaq u yeesho waxa kale c'est droit à la formation professionnelle comme on disait droit à l'éducation xaq buu leeyahay muwaadin kasta reer Djibouti asagoo dugsi dhigay hadda isagoo shaqeynay xitaa isagoo xitaa shaqo doona xitaa inuu xaq u leeyahay inuu xirfad barto amba xirfadiisa jadiidisto amba xirfadiisa bedesho xirfad buu yaqaanay xirfad kale ku darsto xaq buu leeyahay droit bay siinaysaa luwagan droit à la formation professionnelle amba ha noqdo qof 40 jira amba 40 jira amba ha noqdo marka waxay keenaysaa inay meelihii structure-da lagu dhigay inay la ballaariyada ina waxa noo qalabkiina la badshay doonaysa marka tan aan ku sheegayo waxay soo galayaan hay'adahani nidaamka way soo galayaan aqoonsigooga marka xitaa waxa la qorayaa certification waxa la yiraahdo inuu formation gaasi kartigaas carte formation gaasi buu sameyn karayaa farsamo kale ka duwan ma sameyn parce que waxa mushkilad waxa weeyaan farsamooyin kale la sameynaa oo marshiga loo baahnayn culays uu keenaya oo de ma yarooday farsamo la siiyo shaqanaysan kuna shaqo ma yidaya tan barakuri anagu ina card baan iska haysanaa kaarkaasi ina dadka oo dhan ha sameeya ina ka baxda ma oo nidaaminaysa waxa kale ay keenaysaa inay region kastana inuu isagu potential bilaysi amkaaniyad buu siiyay isku filnaanshaha weeyano iyakana ina la siiyo ardayga xagga lagu formeeyo farsamada la siiyo inuu jubta loogu yimaado lama doonayo waa inuu xagga uu joogo oo shaqo abuur ka helo oo xagta macdan gaar leedahay imika cali sabiix waxay leedahay ilaahay wuxuu siiyey khayraad u gaara cali tajawra khayraad u gaara marka formationka traininga la sameyn doono khayraadkaasi ayay ku salaysan yihiin oo adapti ku yihiin wala oo marka ma ina imaado madaxda maaha soo biiray waa in meeshada ku helaan mid baa jirto ardayda mid ka dhigata dugsiyaasha farsamada gacanta ee hijada ka dhigta mar stage-ka milieu professionnel xagee waxa isweydiina war ma entreprise badan ma jiraan maxay sameeyaan ardaydaas Djibouti way imanayaan training ugu sameeyaan laakiin waxa nin Francisco aan la sheegaysanay wuxuu yiri waa inuu horta iyaku kuwan ka baxaya inaad caawisaan sida shirkadu abuur sameeyaan shirkada abuur markay sameeyaan stage-ga ciyaalkaasi ay ka ku sameeyaan فهمت كابن كسو كسو بحايا هادات قرب قشان او يسوي شركه دي وسميه قرب قالو شركه سو ku baxo او ardaygi dif fasal ka dhiganayna taa ku bixi doona stage-giisa laakiin haddaad tiraadaan xagga ma soo wadana c'est pas une solution bu marka taasina waa lagu jiraa sidii ay formation noqdaan formation adaptée pour chaque région
degmo kastana Degmo inaad walba ku habboon. ku habboon Teedii ah. teedii ah mudane wasiir maalgelin ayuu madaxweynuhu ku sameeyey dugsigan liiga taas maxay soo kordhisay taasi wallaahi maalgelistaasi horta liiguun maaha liiga waa qaybtii ugu cuslayd baa yaan dhignay laakiin sida hadda niisoo sheegayay heejadaha qalabka yaalana inay qalab ziyaade ay yihiin qalab cusub ay yihiin qalab maxaa la yidhaha u dhigmaya oo liiga nacam heerka ka gaarnay ma kule qalabaynta dugsiyaasha farsamada gacanta laakiin waxaa liiga nagu soo biiray waxaa la yidhaaho center kale oo shiinaha tareenka luban tareenka luban iyo waxaa nagu soo biiray intaasi sunhill meeshii farsamada gacanta arta oo centre de formation au métier maxaa la du tourisme et de l'hôtellerie oo xaggaasi oo ay noqotay qaybtana ku sheegayay traininga lagu sameynayo milieu professionnelka inay dhibaato u lahayd ardayda carta joogta waayo waxa weeyaan laba campuski iyo Sheraton inta badan ku sameyn jireen stage ku sameyn jireen laakiin waxa noqotay inay waqtigaasi yar u kooban yahay oo xitaa mar gacanta loo dhiibay gacantii lama siinayo oo laguma aaminayo qalabkii naga jibinayaan waxba naga sameynayaan inta badan markaasi second plan joogay laakiin Sunhill waxa noo noqotay terrain d'application hotel iyo restaurant application lagu tijaabiyo ayay noqotay oo ardayda liceega hoteleriga arta ay ku sameeyaan xagaas ay ku sameeyaan waqtigu iyagoo kuwa weyna tagay Sheraton ka tagay laakiin waqti kale ziyaadan siinay ay xagaasina training ku sameeyaan ta kalena centerkaas isaguna wuxuu training sameeyay formation complémentaire ardayda amba qof kastoo doonaya inuu barto cuisine ka barto qof kastoo doonaya inuu barto maxaa la yiraahdaa xirfad xagga tourismiga iyo hoteleriga inuu iman karayo isagoo wax bag inuu haysto wax complémentaire wax la yiraahdo sanad kalan ziyaada inuu sameeyo amba reconversion wax la yiraahdo bedelaad ta kale ee jirtana waxa weeyaan imika waxa laga wadaa barnaamij center kale oo la wadno wasaaradda xagga guriyeynta oo waxa la yiraahdo centre de formation au métier du bâtiment tababarka xagga dhismaha oo gaar oo markaasina niveau kale xirfad kale aan sameynayno technicien supérieur BTS baa laga sameyn doonaa maaha niveau bac professionnelka liceyaashana ku sameynayna marka dambe centerkaasi oo imika dhismihii la bilaabay lama sanadka dambe insha Allah hirgeli doona inuu noqdo technicien supérieur keenayna sameyn marka waxa ka dhigan tahay ilmaha technicien supérieur noqonaya secondkiisa kaga soo bilow ilaa ma isaguna BTSTC waa ilmo xirfadii farsamada gacanta soo dhigtay weeno waliba takhasus ku yeeshay xagga batimaasha ku kala la wadaa oo xagga Djibouti isaguna oo la wadno oo isaguna centre weyn oo Djibouti laga sameynayo au métier toujours de tourisme et de l'hôtellerie au niveau BTS laga sameynayo ayaa jirta dalxiiska marka wallahi xoog ziyaada ayaa imika la dul saaray xagga farsamada gacanta oo natiijooyinkina ma sha Allah waa kana soo sheegno waan mashaariicdu bay la socdaan mashaariicdan bal socdaan iyo centerka imika balbala laga doonaya software ka sameeyno oo tusikii activité logistique transport kina waan ka sameeyno iloobayna hadda la sheegay balbala xagga ariga inaan ka sameeyno center logistique transport oo maxaa la yiraahaa wax alla wixii la xiriiro marka imika waxaan badinaynaa au lieu de lycée la sameeyay polytechnique formationnel kala duwan sameynaya inaan takhasus aan sameeyno takhasus ku leeyahay logistique transport takhasus ku leeyahay xagga batimaga takhasus ku leeyahay xagga dalxiiska iyo maxaa la yiraahdaa hoteelada takhasus ku leeyahay xagga automobilka xagga baabuurada saabaan u kala wadnaa gabagabadii baan joognaa kolley waqti badan baan kaa qaadanay waa naga raali noqon shaqo la'aantu kolley waa dhibaato jirta dalka culays fara badan bay ay ka haysataa dhalinyarada idinkuna dadaal baad ugu jirtaan si dhalinyarada aad xirfad aad u siinaysaan inkastoo dhibaato fara badan aad kala kulmi kartaan sharikadaha gaarka loo leeyahay idinka ka wasaarad ahaan dhalinyarada ma caawisaan oo mashaariic ma ka maalgelisaan oo ma taabagelisaan si iyaga laftigooda shirkad ay u noqdaan warun taasina waa arrimaha jinta ku soo biiray farsamada gacanta weeyaan maadaama de shirkadihii gaarka loo leeyahay isniri waxa ninka sax ku xiran GPS ku xiran tahay qaadkiisa ku xiran tahay maxaan kala sameyn karaynaa inta loo dooni lahaa in shirkadaha ka shaqeeyaan maxaan uga fikir weynaa ma nidhi in shirkad abuur loo sameyn lahaa ardada marka waxaan sameynay sanadkii hore center lagu beerayo les micro entreprises
shirkado yar yar shirkado yaryar oo centre incubator simka aan idhaahno oo liiga dhexdiisa ka sameynay liiga dhexdiisa aan ka sameeyey mid aan iri ardaygii amba waa arday marka uu formation ku jiray iyo markuu dhameeyo markaaba la shirkado ay qaataan amba waa arday isagoo sii ziyaadsaday waxbarashadiisa sii ziyaadsaday oo university tagay amba waxa weeyaan arday dee xirfadii leh laakiin dee inaa la garab gala leh marka waxaan sameynay waxaan idhi ardaydaasi projet bay la imanayaan projega mashruuc bay la imanayaan mashruuc ay la yimaadaan baa lala eegayaa mashruucaasi mashruuc hirgelaya oo dee maarsheegii ka qaybgali karaya muu yahay marka la etiidiyeeyo oo la eego oo laga shaqeeyo ayaa ardayaashaas lasoo qaadanaya par maxaa la yidhahaa par métiergan ku saabsan maxaa la yidhaha informatiga noqoto métiersha ku saabsan day noqoto koraanka métier baan qaadanay malaa saddex aduu lix micro projet waliba iyakaa associé isla noqday marka waxaan ugu talagalnay inaan sanad ay isticmaalaan koraankii gurigii maxaa la qalabkii laga kafaqa sanadkaas inta la kobcinayo ay xoogeysanayaan marka meeshaaba dhiiggaaba ayay ku sameeyaan waa dhaqan jadiida oo u baahan inaa la barto marka qaar badan way ku adkaatay arday badan oo xitaa qaar markuu shaqo helaan naga socda jira aduu in baan imika oo insha Allah sanadkan hirgeli doona hadda la meelaha ama 4 xaqii 6dii 4 ya insha Allah ya hirgeli doona oo iyagu iska samaystay xaga noqod xaga fry climatisation xaga klimaat zaarada la hagaajistooda nadaafada maristooda mid kale waxa jirta xaga baawarada iyaguna hirgalay waxa jirta gabdho iyaguna xaga commerce e-commerce iyaguna yaa jirta iyo qaarkii batimoga ismaha iyaguna afartaasi oo afar aan hubno insha Allah inay shaqo gali doonaan sanadkan laakiin mid baan weydiisanay haydo waxaan niri garabalkaasi iyo gargaarisa niga gaarayno saddex arrimood baan naga doonayna inaad waxaad ka heshaan adu ka qaybsan saddex lacag ininku aad kala qaybsataan oo revenue noqota qayb aad epargnistaan aad dhinac dhigataan qayb investissement oo ininku maalgelid ku samaystaan saddexdaa kala qaybsan kan niri oo waa la garab galay oo waa la wadaa arrin sahal ma laakiin waa qaybtii ugu markii noogu horeysay sanadkan aan bilownay sanadkan qayb kale dib u qaadan doona haddii la yiraahdo sidii ardaydaasi aan u tababar lahayn taasi un ma aha waxa kala sameynay curriculumka referentialka inuu markuu second soo galaba lagu bilaabo sidii uu isagu hadhow toole oo toona mu noqon lahaa uu developin lahaa uu isagu shirkadda u abuuri lahaa su'aasha ka jawaab badan wasiir ugu dambeyntii gabagabadii ma tijaabiseen dadka wax bartay horta waxaan maadaama markaan qiimeeyey aan arkay yaan is iri horta inaan la qanciyo weyn dadka annagoon qancsannahay waxaan dhigaynaa waan garanaynaa waxay tahteedu leeyihiin qalabkan sinoteedu tahay waan garanaynaa macallimiinta waan garanaynaa laakiin waxaan doonaynaa inaan tusno reer Djibouti iyo shacabka reer Djibouti iyo dadka oo dhanbaba contribution inaan tusno ardayga ka soo baxa dugsigaas maxaa la yiraahdaa farsamada gacanta kartidiisa marka madaxweynaha ayaan u sheegay keenay madaxweyne waxaan tusaynaa ardaydu inay aqal dhisi karayaan hawlkar yihiin dabska aqalka marka la dhisayo qaybtii koraanka ku jirta qaybtii plomberia ku jirta qaybtii dhismaha qaybihi kala duwan xirfado kala duwan ya xitaa waxa jirta topography baa jira kii maxaa la architect baa jira soo sameeyay waxaan meel nasi space nasi kii meesha soo sahminay kii sameeyay wuxuu dhan galaysa marka nasiib baa naga siiyay taraan baa naga siiyay parcel ministerka guriyeynta naga siiyay madaxweynuhu naga siiyay meesha uu isagu foundationkan IOG maalgelista anaka iska lahayn kormeerka anaka iska ahayn shaqaalihi anaka iska ahayn ardaydii iyo macallimiintii iyo inspectoradii ayaa ka shaqeynayay 10 guri oo dhameystireen 10 guri waxa la sameeyay dhulkii marmaraysan yahay uu jangadii dhismihii u dhan yihiin maqsin sida u dhisayna qallo maqsin waliba xitaa qalabkii hurdada 5 guri xitaa qalabkii lagu seexanayay sariirtii kabadhkii miiskii waxa lagu sameeyay liiga lagu sameeyay ardaydii liiga sameysay kuna daqadaha liiga lagu sameeyay ababada liiga lagu sameeyay ardaydii liiga ku sameysay waxa kale tahay nacam 100% waxa ahayd produit amba waxa la yiraahdaa waxa iska yahay iska dhan oo iska leeyihiin marka isagu madaxweynuhu soo ardayda uga farxiyo wuxuu sameeyay
mafaatiixdii intii ku abaalmariyay intii ku jirtay foundationgaas ardayda ku jirtay society-ga samaysatay ee shaqeynaysay horta waxay ahaayeen 22 bay ahaayeen 22 bay ahaayeen markii dambe waxa isku soo haray in badan baad uu kari weeday laakiin waa ruux cajiiba in lixda imaadaan reer Djibouti ilma reer Djibouti oo aqalkii hooyadii ay ka soo baxay lixda عدد مكساو صباح يسوع ويجوجين لحظة عدد مكان دعوة مكسان عندنا ما حل صلاح كل المقادي كريان دعم مقادي كريان لكن هو أنت بوجوجين ثاني وقادم مكان واحد هتجاب عجيبة هاي مكان واحد توصيني دينا كران كأبا أود أبا حرفض إليهين الحمد لله ده تمكي جوريو لما يسترن مكان بدحملونا وكفر حيو معين شو إنه يمدو فري تمكن قالوا حلون يالك إمسا بنقولون هبي نبدأ بنقولون إمسا ماريا ماريا أوردن سوتريا وحي حاصل أوردن وحي حاصل مفاديح ذوك التلفزيون كاركتين ما شاء الله حتى مركز ما حد عاد قارك هلا إنه خيرك أي مضان يقول سنان ببا إذا كاردي تمكي أقل إمك أرضي سميسي markay laakiin dhisayeen ajiib ahayd kamarna kama fikirin iyagu aqal ka yeelan doonaan farxad ajiib lahayd waqti tobankii bay kala sii markaasi waa taaway mutusaysa inay horta aaminaada tijaabada loo yeeyo aaminaada loo yeeyo shirkadaha aamin aan tusayno waa taawayaano waa tu maxaa la yiraahdaa dadaalkiina uu sii soconaya dadaal kale oo qorshaysan baa noo yaala imika hadda la yiraahdo oo waxaan kala qaybinay markaan waji loo sameeyo politique loo sameeyo hadana plan d'action loo sameeyay 15 sanadood soo socda actionyaashii iyo camaladii la imanayay sidii loo balaarin lahaa marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan xaga farsamada gacanta aan ka warkayna doolada aad iyo aad baad u mahadsantahay mudane wasiir waxaan u mahadcelinaynaa mar labaad wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud tan iyo kulanti dambe haddii Allah wadala uu raali ka noqdo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo